متشرفك قيمة بدن له ugu horeeyo ustaadkayga barbaariyayga ustaad Maxamed Macalin Xasan Maxamed Yare sidoo kaleeto asxaabta kulliga soo wax wada baranay wajiyo qiimo badan in muddo suuqa ay dambeysay dad anagoo yaryar lagu soo bilaabo xirfadda وجيال شرف بدن معلمين ما نحب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التحية برنامج أي فرحة بيني وتاي نسوي استاي مهرتينا شرف هاي تاي مانتاي ومعلم كم ده دتك الجميع يو دفعين كيمورية دتك الوصول بالله فدان anigoo kamida inaan hortiina taaganahay sharaf weyn ay tahay barnaamijii markaa soo galay waxa maslaxa taagnaa inaan tartan ku wadi jirnay xirfadda ustaad Cabdullaahi Xasan Taali barnaamijii waagaas wuxuu ahaa ninka noogu yar teelinka kale tartanka markaa ku galnay marka sida noogu yahay sida noogu wuxuu ahaa barajabada markaan isbarbar dhigno maantana fiiriyo iyo mansabku taagayaan waxa way farxad weyn ay tahay sidoo kale halkan waxa taagan ninka labaad oo qiimo badan asana ilaa iskoor ayaa aniga tiiminka ku galnay laakiin asaga xafladii hadii loo qabtay media laga sheegay anaga taankeena waxa la dhigi jiray dadka farooda la famalay sida tiiminka laatiinka carabiga shidka iyo shaqalkii mid ka soo qori jiray marka taasna waxay loo tahay farxad weyn loo tahay inta kadib xirfadda ustaad Maxamed oo soo baray runtii ma aha aqoon normal aniga kuma tilmaami karo waayo waa mid maantay meel walba ha noqoto digriga jaamacadda masterka waxyaabaha lagu karaameeyo kaliya digriga ma xirfadeena ha noqoto meel shaqo ka joogto filliga ay joogto dadka waa ka qiimo badan waa ka karaamo badanahay waxaan keenaa xirfadda soo baray waxaan ugu dhaxal u ahayn hoggaan u ahayn rag manhajka wax ka qoray laatiin iyo carabi ayadoo ay jirin magaaladan wax carabi wax ku qoro oo shaqli karo oo shidi karo dadkii dabadihii inta isu tageen manhajka wax ka qoray oo hoggaan noogu ahaa liidar noogu ahaa ayuu ustaadkeena sharaf weyn loo yahay in manhajka maantay dalka ardayda wax lagu baro rag wax ka qoray aan ka mid nahay taasna waxa way farxad weyn loo tahay inta kadib ustaadka xirfadda uu soo baray ma ahan xirfad kaliya ku ekeed shaqadeena xirfadeena waxyaabaha xirfadaas aan ka dhaxlay waxa kamid ah inaan dad kale iyo mujtamac kale tababar u sameeynay ee maanta yihiin dad aqoontooda iyo xirfadooda nolol maalmeedkooda wax ku soo saaranayo dadka la sii tirin gareenayo waxa hubante oo baala maxaa yeelay qofka wax ka barto ayadoo si sax ah u qalin jiyo qofkaas ma noqon doono qof shaqo raadiye wuxuu noqon doonaa qof shaqaale ah mararka qaar waxyaabaha ay isweydiin waxa kamid ah yaa 10 qof idinka dhigo baahida xirfadana la soo baray ee mujtamaca iyo dadkeena iyo dalkeenaba ka taagan ee u baahan yihiin anagoo aan qaybsan karin hal meel markaa buuxina 9 meel ee banaan tahay oo ay u baahan tahay dad badan oo filligaas in la baro mujtamaca dalkii dadkana u faa'iideeyo marka waxaan keenayaa qof xirfadda barto wuxuu noqon doonaa qof asaga noloshiisa iyo inta ku xeeran ka faa'iido noqon doonaa waana hubanti digrii iyo aqoon iyo waqtiga tiro badan ardayda ka soo baxay maanta meelaha fadhiya hal bilo Maxamed oo la joogo waxa aaminsanahay inuu noqon doono qof noloshiisa ku filan sidoo kale aqoontii macalinka baray waxyaabaha ka xasuusto waxa kamid ah waxa ku soo biiray 2000 iyo 7 dhamaadkeeda 2008 ilaa 2014 waxa kamid ahaa dadka lafdhabar ku ahaa madbacadihii iyo baahidii ustaadka waa asaasay anigoo kamid ahaa dadkii macalinka uu u xushay inaan noqdo designer and trainer مطبعية كم ده هي فتح برينت سنتر
iyo bulsho ilaa yoomina hada taagan madbacadahaas dadkii aan ka soo wada shaqeyna maanta wajigayga hortooda fadhiyaan waxyaabaha aan ku xasuusto waxaa ka mid ah aniga ayaa hadlayo waxaan aasaasay 2 madbacad oo shaqeeyo oo xirfad leh oo aanan aniga ku lug lahayn oo maanta dadkii aan soo train gareeyo uu yahay maxamiyada maanta ay ku shaqeysanayaan taasna farxadayda sida mid waxyaabaha asaas ah ka mid ah school yiraahdo Somali Professional College oo hostay doono oo awood u yahay Talaab Professional College awood ay istaagka xirfadiisana lagu bixiyaa waxa bixiyana aniga maahan waa dadkii aniga soo train gareeyo soo tababaray oo xirfadii ustaadku soo baray ayaa wax ka dhigo marka waxaan rajeynayaa xirfad barakeysan waaye aqoonta waxa la socoto duca la socoto ustaadka waxyaabaha uu bixiyo waxa ka mid ah in ardayda dugsiga sare ka baxay oo aan shaqada haysanin inuu xirfad baro oo maanta ku shaqeystaan marka ma ahan macalinka hadda sanadaha inuu bilaabay aniga hortiina taagan waxa ka mid ahaa dad macalinka aflahay oo hal sinti uu wiligiis ka qaaday qabiilkayga uu leeyahay weydiin xildhibaanay ma keenin maanta waxaan aaminsanahay dadka ama shaqada aan wada joogno maanta dadka ugu jecel yihiin ha noqoto xagga xirfadda ama ha noqoto jaamacado kale researchka marka waxyaabahaas ayna ma ahan filliga tacliinta education degree iyo warqadda inaan ku bartay waa xirfadii maxamiyada oo soo hoos fariistay oo xiriir ugu noqday oo aan isla soo quraacnay isla cashaynay marka waxaan rajeynayaa xilli duruuf adagna waa isla soo qaadanay dalka intaan soo ka qurux badan waxaan rajeynayaa xirfadii uu nasiib bari inaan mujtamaca iyo dadkeena sii gaarsiino aad u mahadsantahay qof xirfad laha xarakooda